mid ka mid ah dagaaladii dunida ka dhacay ayaa askari jeebkiisa laga helay warqad uu qoray ka hor dhimashadiisa waxa aynu ku qorneed sida tan: haddii aan dhinto wax waliba rumaysanina. haddii hooyaday barnaamijka TV-ga ka tiraahdo wuxuu jeclaa inuu u shahiido, waxa uu oran jiray waan dhiman doonaa si uu dalkayga iyo dadkayga ay ku noolaadaan farxad iyo reenreen rumaysanina. sida anigu maan oran, idinka ayaan idla mid ahay, waan jecelahay nolosha sida aad idinka u jeceshihiin, mana rajaynaynin inaan dhiman doono. laakiin wariyaha qamaarka cas xiran ayaa sidaa ku qanciyey inay tiraahdo hooyaday. saaxiibkayga sawirkayga ayuu ku dhagsan doonaa gurigiisa oo uu ku dul qori doonaa gabay uu ku barooranayo in aan shahiiday. ha rumaysanina, waa munaafiq weyn. meeqa goor ayaan lacag dayn ah weydiistay, balse wuu iga dhuuman jiray xilliyada qaar. madaxweynaha xitaa ha rumaysanina, markuu xafladda aaskayga qaranka kaga sheekeynayo dagaalyahanimadeyda iyo sidaan u jeclaa dalkayga, maad aragtaa madaxweynaha suudka uu xiran yahay ee quruxda badan waxa uu ka iibsaday saadkii ciidamada loogu talagalay oo uu lunsaday oo uu ka qayaamay. waxaynu nahay ilmahii fuqarada magaalada, sidaas ayaan ku noqonay shidaalka dagaalada ay hurinayaan dadkaas madaxda ah ee beenaalayaasha ah. maad aragtaa ilmaha madaxweynaha dalka dibadiisa ayay ku dhaqlaynayaan baararka iyo meelaha lagu nasto kuwa xabadaha kor u ridaya si ay u cilaamiyaan tacsiyadeyda iyo baroordiiqdeyda. ma garanayaan qolyaha yihiin. weligay dagaal kuman arag sida ay sheeganayaan. ma ihi geesi, waxba kama garanayo geesinimada iyo xitaa astaamaha jacaylka waddanka, balse qorigan waa sida dumarka oo kale oo ragnimo baas iyo nacasnimo ayuu kaa soo saarayaa. haddaba in aan xabad ama madfac agteeda kusoo dhacay ku dhinto, in aan qasab u dhinto, wax farqiya uma dhexeeyaan. ha rumaysanina wax aan ka ahayn baroorta oohinta hooyaday marka ay raalli ka noqoto, ama niyajabka aabbahay, ama ilinta gabar yar oo aan wax badan u ballan qaaday in aysan waxba iga xumaan doonin. indhaha u furnow hurdada waa iyo kuwa mar walba ku heesaya halgankeena. wax badan ayaan isweydiiyey, maxay caruurta dadka saboolka ah oo keliya u shahiidaan, iyaga keliya dalka u difaacan, iyagoo xitaa 1 mitir dhulka aanan ku lahayn, iyaga oo qabrigooda xitaa loo iibiyo. maxaan u maqlin geerida mas-uul ama ilmo uu dhalay oo u dhimanaya dalka? su-aalahan jawaab ma loo helay dhimashadayda kadib? ugu dambeyn, waan ka xumahay waddankaygiiyow, adiga darta uma dhiman, balse waxaan u dhintay si aan quud uga helo dal aan ii dirnaxaynin waxyaabihii ugu yaraa ee aas-aaska u ahaa noloshayda. waa runta aysan jeclaan doonin madaxda markii ay dhegaystaan dardaarankayga. mahadsanediin. waxaa qoray qormadan aan jeclaystay inaan halkan idinkaga soo jeediyo qoraa maxamed duugow. aad ayaad u mahadsantiin. mid ka mid ah dagaaladii dunida ka dhacay ayaa askari jeebkiisa laga helay warqad uu qoray ka hor dhimashadiisa, waxa aynu ku qorneed sida tan: